السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كشنات ديسيدا ويب سايت waxbarasho kaas oo aan ku sameynayno WordPress waxayna caawinaysaa software loo yaqaan local si aan computerkeena markaa ugu install gareysano ama aan ugu shubano website WordPress ah. waayahay cashirkii ugu dambeeyay wuxuu inoo ahaa haddii aad xasuustaan inaan theme soo degsanay activate gareynay muuqaalka asalka uu kusoo degay WordPress-kana markaa wax ka bedelnay maanta waxaan rabnaa inaan plugins degsano ama caawiyayaal themeka caawiya kuwaasoo naga saacidi doona inaan websitekeena wax badan oo lasoo koobi karin markaa ka bedelno design qurxan samaysan iyo waxyaabahaas oo dhan idan marka muuqaalkan wuxuu daaran yahay keliyata sida loo soo degsado plugins looguna shubto website-kaaga waayahay localkaaga markaa soo gashid waxaad tagtaa website-ka markaa aad rabtid inaad wax ka bedesho kadib halkan ay ku qoran tahay wp admin guji waayahay waxaa si toos ah u imaan doontaa website-kaaga dashboardkiisa ama halkii laga maamulayo website-kaaga waxaa imaan doontaa halka ay ku qoran tahay plugins hadday arkaysid dhankaaga oo kuu soo dhaweynaya gacantaada bidixda ah ayuu ku jiraa plugins la yiraahdaa kaasa soo qabanaysaa hadda haddii aan isla fiirino waxaan fiirinaynaa waxyaabaha ku jira iyo inuu eber yahay in kale waayahay waa soo furay waxba iguma jiraan waa arkaysaa soo ma hadda meeshan waa faaruq waxaan rabaa inaan kusoo degsado markaa plugins si ay iga saacidaan website-ka inaan wax badan ka bedbedelo idan waxaan samayn doonaa halkaas kor ay ugu qoran tahay add new plugin markaa ku dhufto kadib waxay soo bixi doonaa dabcan page cusub ay ku jiraan intaasoo kun lama tirin karaba intaasoo kun oo plugin idan marka waxaan kaga baahanaa oo kaliya halkan ka kaluumaysanayna aan kusoo qabsanayna marka koowaad pluginka ugu muhiimsan oo u baahannahay waxaa loo yaqaanaa Elementor waa midka ugu weyn maanta adduunyada lagu dhiso website-yada WordPress-ka ah Elementor markaa qorno kadib search ayuu samayn doonaa wuxuu inoo soo saarayaa dhammaan wixii la xiriira Elementor-ka ama pluginka arkaysaa intaan oo dhan uu soo saaray sooma aniga waxaan rabnaa hadaba midkan koowaad Elementor website builder ay ku qoran tahay kaasaan install ku sameynaynaa waayahay marka sidoo kale lagu soo tago uu diyaar u yahay inaan active ka dhigano dibad baan dhiganaynaa dhammaan waxaan rabnaa hal mar active gareysan doonaa insha Allah waxaan raadinaynaa Elementor mid loo yaqaano Elementor waxaa la yiraahdaa Elements Kit inuu umaleynaayo Elements Kit midkaan raadi hadana haddii si caadi u soo qoro Elements Kit ayaa loo yaqaanaa uu ku caawinayo asagana dabcan waxyaabo badan loogu bedbedelaa website-kaaga waa kan waa midka ugu horeeya hadda arkaysid waa add-on la yiraahdaa waxaa lagu darsadaa Elementor-kaagii hore aad degsataa lagu dul darsadaa si markaa features gooniya uu ku siiyo waxaan dhihi doonaa asagana install oo degsan doonaa waayahay waa inoo degay haddana wuxuu diyaar u yahay inaan activate gareysano waa tegaynaa mid kale haddana raadsanayna hal mar waxaan oo dhan active ka wada dhigan doonaa insha Allah waxay imaanayna meesha sigaad mar labaad waxaan ku qoranaynaa tutor waa pluginka ugu muhiimsan sida website-kan maadaama website-kan uu yahay mid waxbarasho haddii tutor aanu kugu jirin maxaa la yiraahdaa isma anfici doontaan way jiraan plugin kale oo kaa caawinaya inaad waxbarasho kusoo gudbisaa ama koorsooyin waxaa kamid ah midkan ku qoran tahay master study waxaa kamid ah LearnPress mid ay yiraahdaan way badan yihiin laakiin maanta midka ugu badan ee aad loo isticmaalo uguna fudud la heli karo waa midkan tutor LMS la yiraahdo dabcan waa arki doonaa features fara badan uu leeyahay isagana install aan dhihi doonaa waayahay waa arkaysaa waa uu ii soo degay dabcan hal xabo tutor asaga la socdaa rabaa inaan ku darsado tutor LMS Elementor add-ons loo yaqaanaa waa isagu ku xigaa yacni pluginkii ugu horeeyay ee Elementor-ka aan degsanay iyo tutor-kan miday wadaagaan waaye si koorsooyinka iyo waxaaga isla falgalaan labadooda kaasa waxaa loo yaqaanaa tutor LMS Elementor add-ons waa kan isaga install aan dhihi doonaa markaa waa gartay wuu inoo degay isagana waa kan waxaynoo haray hal plugin oo keliya kaasoo noqon doona WooCommerce wuxuu ka saacidayaa website-kaaga in uu noqdo mid payment heli karo yacni lacag lagu soo diri karo koorsadan markaa laga iibsan karo idan marka WooCommerce sidaas u qoraysaa WooCommerce sidaas u qoraysaa insha Allah waa kan ugu horeeya inoo soo qabtay waaye WooCommerce hadda arkaysid waa wuxuu noqon doonaa kuwa ugu muhiimsan uu ka mid noqon doonaa pluginska u baahannahay insha Allah waa rakibanaynaa markaa install ayaan dhihi doonaa waayahay wuu inoo soo degay waa kan haddan wuxuu diyaar u yahay inaan activate gareysano dabcan hadda activate ma dhahayno dib u laabanaynaa si pluginska aan degsanay oo dhammaan hal mar markaa computerkeena ugu fasaxno una ogolaano markaa inay wax ka bedelaan waxaan taabanaya halkan ku qoran tahay install plugins kadib waxay soo bixi doonaa halkii dhammaan ay soo wada galeen intaan oo dhan ayaan saari doonaa marka laga reebo WooCommerce sababtu waxay tahay isaga ayaan uga baahan doonaa marka koorsooyinkeena dhamaystirno kadib aan u baahano inaan markaa lacag aan kusoo dalacno ardayda
طبعا dibaa ka samayn doonaa marka websitekeena dhisano dhammaystirno dib inoo noqon doonaa insha allah. halkan aa arkaysid maxaa la yidhahdaa hadda waxaa igu jira elements kit mid loo yaqaano tutor iyo tutor elements add-ons mid loo yaqaano. intaas aan waxaan ku samayn doonaa activate. idan marka si tooda activate hal mar aan ugu wada sameeyo waan wada doortay si arkaysid meeshana ku qoranta bulk actions soo furi doonaa. waxaan gujinayaa marka amarka ay ku qoranta activate kadibna waxaan leeyahay apply. waayahay markaan activate ku dhufto wuxuu ii soo saaray page oo ka socda tutor LMS plugin-ka loo yaqaano. طبعا wuxuu siinayaa guide yar iyo tuutoosin qaabka u isticmaali lahaa iyo waxyaabahaas oo kale ah. diiwaan ka dhiganaynaa oo waxaa ku dhufanaya halkan ay ku qoran tahay I already know skip it. yacni muhiim taas kuma laha waa ka tegi kartaa directly la start waa dhigi kartaa talaabooyinka kuu tilmaamayo waa raacraaci kartaa laakiin inaad sida ku fiican waqtiga isaga lumin halka waxaad tiradaa marka I already know skip it. marka intaas sameeyay kadib wuxuu ii furi doonaa plugin-ku si toos dhex geyn doonaa. idan marka si aan u ogaado dhammaan pluginskii aan kusoo shaqtay inay active ii wadan yihiin iyo in kale waxaan ku dhufanayaa halkan ku qoran tahay installed plugins. waa arkaysaa intaan markaa u dubay in active lagu sameeyo uu active gareeyay markii laga soo reebo tutor LMS elemental add-onska. idan marka activate aan ku sameynaya isagana. waayahay wuu ka marsan anagaa ka reebay insha allah gadaal baan ka sharxi doonaa markaan koorsooyinkii waxa aan set up gareysano marka inoo dambeeyo haddii kale jam iyo waxyaabuu nagu furaya. waa fahantay muuqaalkan intaas ku egya insha allah. aad u mahadsantihiin.